السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك. دمان داودياش شرفت له وسلام هيا وحالا والسلام هيا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maantay waxaan rabaa inaan arrin yar idinla wadaago oo ku saabsan arrimaha Soomaalida baryahan baraha bulshada isqabsaday waxa loo yaqaano prank ama kediso afka Soomaaliga lagu yiraahdo kediso oo ayaantan baraha bulshada ku soo batay qaasatan ay sameynayaan dadka caanka ah ee fanaaniinta iyo jilayaasha iyo dad badan iyo dhalinyaro xataa caadiye iyo dhalinyaro badan oo youtuber ah. marka waxaan ku arkay runaantii arrimo aan cajabin oo aan rabo inaan bulshada la wadaago, arrimahaas oo aan ku wanaagsanayn dhaqanka suuban ee ummadda Soomaaliyeed, dhaqanka islaamka ee aan haysano, akhlaaqda iyo diinteena sharafta leh ee karaamada leh ee bani aadamka xushmaysay, xushmadda aadka wanaagsan u samaysay. marka waxaan doonayaa inaan horta aan prank waa wax iska caadiya adduunyada dhan waa laga sameeyaa. waxaa jira mid public prank la yiraahdo oo dadka banaanka lagu sameeyo, kaas oo u baahan inuu qofku laysan haysto oo warqad fasaxa, inuu insurance ku jiro ama maaragtay caymis ku jiro, oo haddii asaga wax la soo gaarsiiyo ama uu qof wax gaarsiiyo ama hanti qof ay wax gaaraan, qofkaas loo magacayo ama loo gudahayo ama la siinayo wixii soo gaaray. badanaana dadka waxaa sameeya shirkadaha waaweyn ee lacagaha haysta ama dadka youtuberska oo lacagta fiican haysta ama inshuransiyada ku jira. waxaan arkay baryahan waxaan fiirsaday dhowr fiideo oo maaragtay sheeg maskaxdayda ku dhaliyay su'aalo badan, kuwaas oo ka mid ah maalan dhalinyarada isqaba ee familada ee qoysaska ah ee fanaaniinta ama jilayaasha ama dadka caanka ama youtuberska ah oo yacni isku sameynaya prank isku sameynaya, laakiin qaabka iskugu sameynayaan iyo hadallada ay ku hadlayaan aysan ahayn hadallada wanaagsan, dhaqanka ku suuban, diintana ku wanaagsan. tusaale ahaan nin ayaa wiil ayaa gabadhiisa uu qabo kale waxa uu leeyahay waxa intuu meel kaamaradu geliyo xilli waxaan rabaa inaan ku furo, waxaan rabaa inaan kala tagno, waxaan rabaa inaan noloshayda soo dhamayno, waxaan rabaa inaan intaan ka badan aan wada noolaan, gabadhuna aysan ogeyn oo asaguna hadhowna markii ay gabadhii xanaaqdo ama qayliso ama ay tiraahdo maxaa ii furaysaa oo ay cabaado uu yiraahdo waa prank oo waan kugu ciyaarahay, baraha bulshada la soo geliyo dadkoo idilna halkaas ay ka fiirsadaan. sidoo kale gabadhu inay ayaduna ay prank ninkeeda ku samayso, waxaan arkayay gabar hadda mar raba inaan magaceeda sheego, laakiin dabcan waa wada fiirsan kartiin, caanaho prank ninkeeda qolka jiifka ugu xirtay asagoo qubays ka soo baxay, intay qolka jiifka ugu xirtay kaamarad ayay banaanka ka daawanayaan ayada iyo maxaa la yiraahdaa rag iyo dumarba oo kale oo ka ajnabi ah, ayaa gabar ka ajnabi iyo wiil ayaa ka daawanaya, ayadina waa la daawanaysaa. ninkii oo suuliga ka soo baxay soo qubaystay, feerihiisa qaawan yihiin, shukmaan kaliya dhexda ugu xiran tahay, waana arrin maaragtay sheeg aan ayadana aan habboonayn in qolka jiifka maxaa la yiraahdaa sheeg qoyska iyo caa'ilada familka xitaa ilmaha ay dhaleen la rabo in la baro inaysan soo gelin oo ay ka ilaaliyaan, inay iska ilaaliyaan oo aysan soo gelin ayadoon loo fasixin ama albaabka ay soo garaacin, oo dhaqankayaga suuban lagu barhay iyo diinteeda islaamkuba ay nafaraysay, ayaa hadda waxaa la rabaa in prank lagu sameeyo inta kaamarad lagu qariyo qarsoon, ninkii oo maaragtay sheeg iska feera qaawanoo shukumaan dhexda ugu xiran tahayoo maxaa la yiraahdaa hawlihiisa qaaska iska qabsanaya, in la yiraahdo waa prank oo la fiirsado hadhowna maxaa la yiraahdaa. ama waxay kaloo sameynayaan dadkaas gabar ka ajnabi ninkii baa markuu seexdo inta lala soo seexiyo oo maxaa la yiraahdaa bustaha hoosta looga geliyo
baa hadhow naagtiisa ayadoo qaylinaysa imaanaysa leedahay war waa maxay ninkaan naagtaas la hurda waa qaylay meesha ka bilaabaysaa waa maxay naagtan kula hurda gabadhana waa la ogtahay marka taasna waa arrin aad iyo aad u xun weeye hadhowna ninkii la leeyahay waa brank aan ka wada ay gabadhii leedahay isna uu ku qancayo taas waa qalad waa diyuusnimo wax fiican ma ahan in naag kaa ajnabi ay sariir kula seexato oo ay brank kula jisho oo ay maxaa la yidhahdaa xaaskiisiina ay og tahay gabadhana waxaan leeyahay ninkaaga sharaftiisa ilaali waxaas wax fiican maahan iska daaya wiilashana waxaan leeyahay gabdhaha inta branki a ku samaysaan masaakiinta oo aad ka oheysiisaan ayadoo dirac baati qabto gurigeeda joogta aad ka khuluqsiinaysaan oo micnaha haddii ilaahay ku reeyahay dabeecaddeeda iyo masayrkeeda iyo dhaqankeeda iyo xanaaqeeda aad dadka usoo bandhigaysaan oo la wadaagaysaan waxaas gabdhuhu maxaa la yidhahdaa ma astaahilaan sharaftoodana ma ku fiicna karaamadoodana kuma fiicna adigana kuma wanaagsana ehelkaaga inaad maaragtay sirtiisa bannaanka keentid gabadhana uma wanaagsana inay ninkeeda ayaduna ay sidoo kale ay sirtiisa bannaanka keento xanaaqiisa in la barto mid baa xanaaqayo alaabta jijibinayo mid baa ayada maalin waxaa arkaya nin ayada dharbaaxay gabar dharbaaxay mid alaabta jijibshay mid maxaa la yidhahdaa isheg caytamay marka waxyaalahaasoo kale wax fiican ma ahan waa waxaan dhaqankayga ku wanaagsanayn waa wax dhaqankayga ka fog dhaqanka islaamka ka fog in caa'ilada iyo reerka iyo qoyska laga sheekeeya yacni waxyaalahooda u qaaska ahaa ee la rabay inay asturtaan inay bannaanka soo dhigaan waa ceeb waxaana kula talinaya dhallinyarada inay iska daayaan dad waaweyn wey dhallinyaro maahan 40 jiro 50 jiro ku dhadhow oo waxaas u malaynaya fani iyo romantic iyo in maaragtay isheg ay tahay wax oo iska caadiyo wanaagsan inay tahay u malaynaya laakiin waxaas wax wanaagsan maaha waa arrin xun waa arrin dhaqanka ku xun waa arrin aan wanaagsanayn waa arrin diinta aan ku suubanayn waa arrin aan maaragtay isheg reerkana u fiicnayn ilmihiinana u fiicnayn waxaana waa arkiif waa document waa kaa oolahaya maqal iyo muuqaalba hadhow ilmahaaga markay weynaadaan oo ay fiirsadaan waxay leeyihin maxay tahay islaantaani odagaan ciyaalo suuqa oo aabbaha idiin ah waxa ay samaynayaan waxaa la rabaa waalidka iyo qoys markii la dhiso reer la dhiso reerku islaamka wuxuu ugu fadhiyaa rugni weyn buu ugu fadhiyaa meel weyn buu kaga jiraa islaamku wuxuu ilaaliyaa akhlaaqda reerka ayuu ilaaliyaa qoyska dhismihiisa ayuu ilaaliyaa ilaa xitaa furiinka maxaa la yidhahdaa rasuulku yidhi alayhi salatu wasalaam ninkii naagtu markay isfurayaan ilaahay wuu ka jeestaa iyadoo la baneeyey furiinka iyadoo yani ilaahay uu baneeyey furiinka oo xalaal ka dhigay ayaa haddana malaa'igta iyo ilaahayba aysan jeclayn in qoys islaam uu burburo marka waxaa la doonayaa walaalayaal inaad iska daysaan dhaqannada noocaas ee xun inaad iska daysaan qoyska iyo familka tan kale waxaa weeye gabar masaakiin oo gurigaa ku joogto reerkaa ku joogto ku jecel oo ilmaha ku haysa markaad tiraa waa ku furaya qalbigeeda maxaa soo gaaraya qalbigu waa muraayad haddii qalbigu ka jabo oo ay maalintaas khafiifto hadhow waa baraankii waa isku ciyaaraya miyaa lagaa yeelaya ma soconayso waxa weye gabadhaas diyadeedii baa gashay sharafteedii baa ku ciyaartay haddii ilaahay kuu reeya waalidkeed baad ka nixisay adiga waalidkaabaad ka nixisay gabadha waalid bay leedahay walaalay leedahay adigu waalid baa leedahay walaalay leedahay waa la wada daawanahayaa videoga aad duubteen adinku ma kontrolshaan qofkii rabaa arkahaya marka waxaa laydinka rabaa inaad ilaalisaan qoysaska sharaftooda ilaalisaan oo aad familada ilaalisaan oo laydinku daydo dhallinyarada iska abuladaan aan maxaa la yidhaahdaa doobabka ahan weli guursan aad u noqotaan musawir wanaagsan iyo ku dayasho fiican iyo wax fiican ay idinkaga daydaan inaad waxun ku hogaamisaan oo waxun ay idinkaga daydaan oo aad yacni akhlaaqiyaad xunxun soo bandhigtaan wax fiican ma ahan wax wanaagsanna ma ahan waana idinkala dardaarmahaya inaad iska daysaan baraankigana noocaas ma ahan waxyaala kale aad samayn kartaan qoys markaad tihiin oo gabar iyo wiil isqaba aad tihiin wax badan baad dadka usoo bandhigi kartaan nolosha qoyska aad uga sheekayn kartaan oo wanaaggeeda dhallinyarada aad ku gubaamin kartaan inay guursadaan barnaamijyo kale aad u samayn kartaan laakiin waxaan baraankaan lagu leeyahay iska daaya gabar baa wiil soo wacaysa waxay leedahay walaal waa ku jeclahay waxaan rabaa inaad jacayl kula jeedo waxaas ma baraanki waa gabar iyo wiil way isjeclaan karaan way isshukaansan karaan baraanki ma waxyaalahaas oo kale ha la iska dhaafo ha la iska daayo gabdhaha lagu ciyaarahayo iyo wiilasha maaragtay isheg ayagana sidoo kale mas-uuliyaddooda aan gudanaynin waxa weeyaan wax walbaba reerka mas-uul waxaa ka ah aabbaha ayaa laga rabaa gabadhu hadday howlahaas ay jeceshahay inuu ka waaniyo oo waxyaalo kale ugu bedelo oo ay dadka maaragtay isheg hataa hadday youtuber tahay si soo fadhiistaan waxyaalo kale uga sheekeeyaan sheekooyin qisooyin yacni howlaha noocaasa qoyska reerka carruurta sidii loo tarbiyeeyo sida ilmaha loo koriyo sida maaragtay isheg maxaa la yidhahdaa isheg wanaagga qoyska iyo maxaa la yidhahdaa guurka iyo waxyaalahaas inay uga sheekaystaan ayaa fiican
halkii aad uga sheekayn lahaydeen ama aad u soo bandhigi lahaydeen muuqaallo aan habboonayn oo aan wanaagsanayn. marka dardaarankaas ayaan rabay inaan idinla wadaago. gabdhaha lee waan idin furayaa, waa kaa guurayaa iyo gabar baan kula qabaa iyo qalbigooda hala ilaaliyo. qalbiga waa wax waartay waa muraayad weeye, hadduu mar jabo ma soo ka maayo. qalbiga gabadha waa la ilaaliyaa, laguma ciyaaro. qalbiga gabadha waa laga farxiyaayo, lagama oheysiiyo. qalbiga gabadha wax fiican baa loo sheegaayo, wax xun looma sheego oo ay ka naxdo. waxa weeyaan waxaas xitaa hadday iska kaadayso dhibic baa meel kugu dhacaysa. hadhow maaragtay ii sheeg wax runa ayaa imaan kara, marnaba ma kaa yeelayso. maalin walba inta waxay tiraahdo waa kugu ciyaaraya tiraahdo, hadda waxay noqonaysaa qof lagu ciyaaraya oo loo keensado meesha in lagu ciyaare. ma noqonayso marwo sharaf loo reerkeeda inay dhaqato, nolol wanaagsan ay kula wadaagto, ilmo ay kuu dhasho, ilmiya ay ku maaragtay akhlaaqdoodii tarbiyadooda ay kugu koriso, adiguna aad aabba noqoto, mas-uul noqotid. reerka mas-uuliyaddiisii iyo macnihiisii iyo macaankiisa ayaa meesha ka baxaya. markii laba qof oo maalin isku wada ciyaarayso, iska nixinayso, iska qaylinayso, iscayrsanayso, isdilayso, alaabta jijibinayso, waxaas ma aha wax ku wanaagsan dhaqanka reerka iyo usrada iyo bulshada iyo diinta iyo maxaa la yidhahdaa asluubta wanaagsan. wax ku wanaagsan maahan, hana la iska daayo. soomaalidana waa ka waaninayaa, aad iyo aad baana uga waaninayaa, aad iyo aad ayaan idinkaga waanina walaalayaal. iska daaya waxaas, waxyaalo kale ku beddesha. waxaa soo haray dhalinyarada public branka ku samaynaysa muqdisho iyo meelaha arkaya gaalkacyo meelahaas ku samaynaysa, ayagana waxaan dhihi lahaa iska daaya, waayo halis ayaa ka imaan karta. dadku waa dad hubaysan, dadku waa dad maaragtay ii sheeg aan waxyaalahan aqoonin. marka inta dadku ku ciyaartaan yaan hadhow laydin dilin. wiil waxaan arkaya wiil baangad ku ceyrsanayo, mid kale uu leeyahay adeer iga celi. qofka uu ku dhagayo adeer iga celi leeyahay inuu hubaysan yahay ma oga, inuu dad soo dilo ma oga, inuu wax kale ma oga. hadduu inta basoolo iska soo jaro qofkii kaloo ceyrsanaya baangad wato wax hadhow waxbad ku dhufto ama uu dilo ama uu dhaawaco, soo wax khasaara iyo dhibaato ma ahan halkaas. iyo dhiig aad gasheen oo aad maaragtay nin maskiin aad dhiig geliseen isagoo u malaynaya inuu qof tuuga uu qof kale ka badbaadinayo. waxyaalahaasoo idil ha la iska daayo. dhalinyaradu siyaabo kale maaragtay banaanka ha u sameeyaan. waa dad maaragtay mas-uula, dad waaweyn baa tihiin, carruur ma tihiin. marka waa anigoo leh arrintaas ha laga waantoomo. waa cali xirsi kaarshe cali kawayare oo idin dhahaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. channelkan sii subscribe dheh, sii gudbi, siina faafi. aad iyo aad ayaa mahadsantihiin, waana idin salaamay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.